sanadka 2022 bilowgiisii waxa uu muuqdaa mid ku xortay dagaal qaaradda isku tilmaamtay xadaarada iyo nabadda ayaa u muuqata hadda mid holcaysa diyaaradaha dagaalka ayaa ah kuwa hawada sabeynaya dabaabaadka iyo xabaduna waxa ay u noqotay bilowga inay dhadhamiyaan xeerarka dagaalka ruushka oo duulaan ah iyo reer galbeedka oo markii hore dhahayay waan difaacayna Ukraine balse markii runtu cadaatay ruushkana uu ka dhabeeyay go'aankiisu waxa ay bilaabeen kaliya inay ku soo haraan kaamirada dabcan warbaahinta ruushku waxaan saareynaa cunaqabateyn dhaqaale ciidankeenu kama qayb galayaan dagaalka waa hadallada ugu waaweyn ee ka soo yeerayay magacaygu waa Satar Cabdiraxmaan soo dhawow daawaday xilli habeen ah 22 February dawladda ruushka ayaa u aqoonsatay dawlad labada gobol ee Luhansk iyo Donetsk subaxiina gudaha ayuu u galay isagoo adeegsanaya khida ama qorshe ah dal daris ayaana weydiistay ciidamo laakiin reer galbeedku iyo Mareykanku waxay u muuqdeen kuwa hanjabaya oo goodinaya laba maalin uun kadib 24 February daqiiqado ka hor duulaanka waxa TV-ga ka soo muuqday madaxweynaha ruushka Vladimir Putin isagoo ku dhawaaqaya in ruushka uusan dareemi karin xasilooni iyo amni sababo uu ku tilmaamay khatarta joogtada ee kaga imaanaysa Ukraine casriga ah wuxuuna si rasmi ah ugu amray inay howlgalaan ciidamadiisu gudahana ay u galaan dalka Ukraine ruushka ayaana isla suuxa ku qaaday weeraro xoogan oo cirka iyo dhulka ah muuqaalo suuxa la duubay ayaa la arkayay dabaabaadka ruushka oo ku sii qulqulay magaalooyinka u dhow caasimadda Kiev waxaana shir jira ay qabtay madaxweynaha Ukraine balse waxa uu sheegay inuu la hadlay Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka wuxuuna sheegay inay u soo diri doonaan ciidamo militari ah oo difaacaya dalka Ukraine laakiin saacado uun kadib waxa haddana isla shir jira ay qabtay madaxweynaha Mareykanka waxa uu yiri ciidankeenu kama qayb gali doonaan dagaalka ka socda Ukraine laakiin ruushka oo ka dhabeynaya go'aankiisa ayaa duqeymo iyo weeraro ula galay gudaha Ukraine goobaha iyo magaalooyinka u horeeyay ee la duqeeyayna waxa kamid ahaa garoonka diyaaradaha Kiev magaalooyinka u dhow caasimadda xitaa xarunta dhexe ee TV-ga Ukraine sidoo kale taangiyada ciidamada ruushka ayaa ku qulqulayay waqooyi bari Ukraine magaalooyin ay kamid tahay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ee Kharkiv oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.4 milyan waxay xitaa aagag military ka sameysteen magaalooyin waaweyn sida Odessa iyo Mariupol oo ku taal koonfurta Ukraine laakiin reer galbeedku aad moodo in hubkooda kaliya uu noqday kaamirada yacni warbaahinta ayaa hadalkooda uu ku soo haray kaliya waan ka xunnahay dagaalka Ukraine cunaqabateyn ayaan saareynaa ruushka iyo aan u duceyno dadka Ukraine haddaba maxay tahay sababta uu doonayay ruushka inuu qabsado Ukraine ugu horreyn Ukraine waxay ka tirsaneyd midowgii burburay ee Soviet waxayna ka mid ahayd 15 dal ee ka tirsanaa midowga waxa ay ka go'day 16 Luulyo 1990 ka hor inta uusan burburin midowga bishii December 1991 ruushkuna waxa uu ahaa dhaxalka kaliya ee midowgii Soviet haddaba 2014 kadib markii ay dhacday xukuumaddii madaxweynihii Viktor Yanukovych oo taageersanaa ruushka ayuu bilowday colaadda dalka Ukraine madaxweynaha ruushka ayaa markii hore sheegay in kooxad jira ay la wareegeen dalka Ukraine waxa uu ku tilmaamay wax loogu yeeray calooshad u shaqaystayaal madaxweynaha Ukraine oo asal ahaan loo tiriyo inuu ka soo jeedo Yahuuda ayuu ruushku sheegay in ay gadaal ka riixayaan reer galbeedka sidoo kale ruushku waxa uu in muddo ah diidanaa in Ukraine ay ka mid noqoto NATO maadaama Putin uu doonayo inuu sameeyo wax loogu yeeray hami juqraafiyadeed isagoona ku dhawaaqay howlgal military waxa uu sheegay in NATO ay halis ku tahay mustaqbalkeeda taariikheed ee wadanahan dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2021 ayuu ruushku bilaabay in tiro kamid ah ciidamadiisu uu geeyay Ukraine haddaba waxa is weydiinaysa reer galbeedku maxay sameyn karaan inkastoo markii hore ay ku hanjabayeen inay difaaci doonaan Ukraine balse waxa muuqatay inaysan dhacaynin taas bedelkeedana waxay adeegsanayaan dagaal laba dhinac ah midka koowaad wuxuu yahay warbaahinta reer galbeedku waxay inta badan u adeegsanayaan dagaalka ruushku duulaan halka warbaahinta ka soo baxda gudaha ruushkuna ay u adeegsanayaan magaca howlgal ogowse khiyaarku waa khidaabka u dhacaya hadalka sidoo kale warbaahinta Yurub waxay adeegsanayaan ereyo u muuqda suurad xumeynta ah in ruushku uu qaaday duulaan inta ugu badanna sawirada goobaha dagaalku waxa soo qaaday warbaahinta reer galbeedka labo cunaqabateyn reer galbeedku ama Yurub waxay bilaabeen inay cunaqabateyn saaraan dalka ruushka midowga Yurub iyo Britain waxay cunaqabateyn shakhsi ah ku soo rogeen madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov sidoo kale waxay hadda doonayaan in la xadido gelitaanka ruushka ee suuqyada maaliyadeed xitaa bangiyo qaar waxay saareen xayiraado Britain ayaa cunaqabateyn saartay 5 bangi oo ku taala ruushka sidoo kale 3 bilyaneer oo ruushka ka soo jeeda xitaa waxay sababtay in kooxda Chelsea oo ka ciyaarta horyaalka Premier League suuqa la soo dhigo isagoo sheegay milkiilaha in cadaadis lagu saaray inuu iska iibiyo sidoo kale waxa magaalada St Petersburg ee ku taala ruushka lagala laabtay martigelinta finaalkii Champions League iyadoo hay'adda UEFA ay ku sheegtay sababo amni darteed dagaalkan military wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dhaqaalaha Yurub sidoo kale wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dalalka jaarka la ah gaar ahaan Latvia iyo Poland oo hore u sheegay inay isku diyaarin doonaan qulqulka dadka
dadka ka soo qaxaya dagaalka Ukraine. haddaba muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay. la soco muuqaalka xigo. daawade waad ku mahadsantahay daawashadaada.